haddii aad dhamaysatid daawashada muuqaalkani waxaad awoodi doontaa inaad dhisid website portfolio oo qurux badan oo sidaan camal ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا طبعا ونكسن دعوة يا ميرو أجوبتان كوسة دوّد جرال كعمتهم. هدي المقال كهرة صوت دعوتي أنا بالله إن أبورك العكس هميست أما بروبوسلو أقرتك مارك هرة حنبريو صوبته وحد كل يرتي إن أتبدل أستميست وأنا استميست وحنكون رجالية كول وحن قياس يا بقول كيف سيعيش هذا بروبوسلو بدن أقرتي إن لكو ويدي portfolio ama lagu dhahay link your portfolio below. marka maanta waxaan soo ogaanaynaa waa maxay portfolio iyo sidee loo dhisi doonaa portfolio website oo qurux badan aan clientskaaga u diri kartid maanta laga bilaabo. marka dhamaysatid daawashada muuqaalkani waxaad awoodi doontaa in aad dhisid portfolio qurux badan oo sidaan camal ah. kaasna aad u diri kartid maanta laga bilaabo clientskaaga. samaynta website-kani kaagama baahno inaad aqoon u lahaatid luqadaha website-da lagu dhiso ama coding-ka inaad taqaanid. kaliya waxaad u baahan tahay in aad haysatid computer ama laptop iyo internet fiican, kadibna aad muuqaalkani step by step u daawatid aadna dhamaysatid. marka ka taxadar in muuqaalkani aad bilow ilaa dhammaad si degan u daawatid. marka inta muuqaalka aanan guda galin fadlan marka hore channelka subscribe noo saar, sidoo kale muuqaalkani like saar, saaxiibadana la wadaag. sidoo kale wixii su'aal ah qaybta hoose noogu rag. marka aan bilaawno dhisidda website qurux badan. let's go. inta aanan bilaabin sharxaadda guud ee dhisidda website-kani 2 daqiiqo aan ku soo koobo 2 qodob. shaashada kor fiir 2 daqiiqo kadib muuqaalkii guud ayuu bilaabanaa. okay, intaanan bilaabin sharxaadda kale waxaa muhiimsan in isla fahanno 2 qodob. qodobka ugu horeeya waxaa waaye waa maxay portfolio website. portfolio website haddaan ka jawaabno wuxuu noqon karaa si kooban waxaa waaye oo website aad kusoo bandhigi doontid xirfadda adiga aad leedahay iyo hadday jiraan projectyo aad qabatay meesha aad kusoo bandhigi lahayd. si kale haddaan u dhaho waxaa waaye waa CV-gaaga oo laakiin la socda shaqooyin aad horey u qabatay. waxaan rajeynayaa intaas inay kugu filan tahay. muhiimadda portfolio ugu dheeya waa intaas. marka sababta lagu weydiinayo portfolio-gaana wax kale maahan, macaamiisha waxay rabaan in ay ku qancaan haddii shaqooyinkan in hore aad usoo qabatay in kale. tani waxay kor u qaadi doontaa markaasi fursadaha dadkaana ay hire kugu sameynayaan ama ay ku shaqaaleysiinayaan. qodobka labaad waxaa waaye in aan isla fahanno nooca website ee aan dhisi doono. waxaa jira 2 nooca website kuwaas oo kala ah static website iyo dynamic website. static website waa website dadka soo booqanaya ay ka heli karaan xog ku saabsan qolada website-kaasi dhisatay ama iskale, kaasoo dadka soo booqanaya aanan ku xujeynaynin in ay log in sameeyaan ama ay akoon ku sameeyaan. tusaalooyinka website-yadani waxaa ka mid ah website-yada blogiska iyo shirkadaha kuwaas oo leh static pages macaamiishana siiya kaliya xog. website-ka kale waxaa waaye dynamic website. dadka website-kaaga soo booqanaya waxay awood u leeyihiin in ay sign up sameeyaan, login ay sameeyaan, kadibna ay wax ka iibsadaan website-kaaga. waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa website-yadani oo dynamic ah sida website-yada e-commerce-ga, website-yada online courses-ka bixiya iyo website-yada memberships-ka bixiya, kuwaas oo macaamiisha ay si dhow ula falgeli karaan. muuqaalkani waxaan ku dhisi doonaa website static ah anagoo aan isticmaali doono free hosting and domain. haddii aad doonaysid in aad dhistid dynamic website oo leh featureska e-commerce-ga, haddaba channelkani subscribe saaro, muuqaalkana la garay wadada ay kusoo jiraan muuqaaladaasi insha Allah. sidoo kale waxaad follow iga soo dhihi kartaa barteeda Instagram haddii aad doonaysid inaad si dhow ila socotid. marka aan gudagalno muuqaalkani. marka qodobka ugu horeeya waxaa waaye in aad lahaatid Gmail account. Gmail account-na waad leedahay saan rajeynaa insha Allah. muuqaalka hore haddaad soo daawatayna waxaan ku sharaxnay sida Gmail loo sameynaa. marka waxaad u baahan tahay markaasi in aad tagtid website-ka lagu magacaabo blogger.com. okay, blogger.com kadibna enter leh, kadibna wuxuu ku keenay maxaa loo yaqaanaa si page-kan cusub ayuu ku keenay. marka kaliya waxaad u baahan tahay in aad sign up aad ku samaysid ama sign in. okay, marka button-kan ku dhufo sign in. kadibna Gmail-kaaga ayaa dooranaysaa. kadibna wuxuu ku weydiiyay in aad
magaca u doortay maxaa loo yaqaan website-kaaga. Magacaana waxaa waaye waa title lagu soo bandhigi doona qaybta kore ee website-kaaga. Okay, qaybta kore ee website-kaaga ayaa lagu soo bandhigi doonaa. tusaale ahaan haddaan ku tuso qaybtan camal tusaale ahaan meeshan ay qoran tahay my portfolio camal. Okay, magacaas camal waa ayuu ula jeedaa xagga display name markaasi. Marka magaca waxa u baahan tahay marka qaybta kore lagu soo bandhigo website-ka. Marka waxaad tusaale ahaan dhigi kartaa my portfolio. Waxaad rabtaa u baxsan kartaa hadda waxaan qaatay tusaale ahaan my portfolio. Okay, ama waxaad dhigi kartaa my website. magaca doonta u baxsan marka kadibna waxaad ku dhufataa qaybta kale ee nakasiga ah. kadibna wuxuu kaa rabaa meesha inaad gelisid address URL wax kale maahan waa domain name ama magaca website-kaaga lagu raadin lahaa. Marka waxaad raadisaa magac kugu habboon ee website-kaaga uu yeelan karo. tusaale ahaan kayga waxaan u baxsan karaa Cabdullaahi. kadib aan fiirsho marka magacaana wuxuu leeyahay mar hore la qaatay available magaca kale isticmaal. haddii magac kale aan ku darto tusaale ahaan Cabdullaahi Maxamuud, magacan wuxuu leeyahay waa valid, waad isticmaali kartaa. hodhow markaasi qofka raadinaya maxaa loo yaqaan website-kayga wuxuu isticmaali doonaa magacayga tusaale ahaan Cabdullaahi Maxamuud kadib .blogspot.com. marka saanu igu soo raadin doonaa magacaan. markaad dooratid kadib waxaad ku dhufataa qaybta kale ah markaas nakasta. markaa finish aad dhahayd wuxuu ku keeni doonaa qaybtani website-kaaga. sidaan ayuu u muuqdaa. marka saa u aragtay marka website-kaaga iyo qaabkiisa marka waxaad samaysaa waxaad ku dhufataa qaybta ay qorantay view blog. markaa ku dhufato waa ujeedaa website-kaaga waa sidaan ayuu u muuqdaa. marka qaabkan qaleelka ayuu u muuqdaa. okay, waxaa ujeedaa qaybtan magaceeda aan gelin my portfolio aa ujeedaa. marka wax aa soo dhigteen ma lahan website-kaaga. marka sidaan ayuu u muuqdaa markii koowaad. marka saa ugu dhigtid website-kaaga mid aad u fiican waxaad isticmaali kartaa markaasi aan dib u soo laabano waxaad ku dhufataa qaybtan ay qoran tahay themes. qaybtan hoose waxaa ujeedaa themyo badan aad kala dooran kartid markaasi oo dooqaaga ku saabsan. okay, marka themeska wax kale maahane qaab dhismeedka website-kaaga suu noqon lahaa. marka anaga waxaa u baahanahay theme oo portfolio ahaan ka turjumayo. okay, theme portfolio ahaan ka turjumayo ayaan u baahanahay. marka saan u helno themekani marka waxaad ku dhufataa qaybtan falaartan hoose ku dhufa kadibna waxaad kusii dhufataa meeshan ay qoran tahay restore ku dhufa. restore markaa ku dhufatid wuxuu kaa rabaa markaasi in wax aad soo upload garaysid theme adiga aad soo gashatid oo banaanka ku yaala camal tusaale. marka waxaan ku dhufanaa qaybtan ay qoran tahay upload. markaa imaada qaybta markaasi upload theme marka wuxuu u keenay desktopka ayuu u keenay. marka waxaan u baahanahay themeki inaan soo upload gareeyo. marka themeka wuxuu ku jiri doonaa maxaa loo yaqaanaa qaabkan ayuu u muuqdaa zipka ah filekan zipka ah. marka waxaad u baahan tahay filekan inaad unzip aad dhahdid oo aad ka saartid zipka. marka say ugu saaraysaa marka aan tagno markaas desktopka ee noo yaalo maxaa loo yaqaanaa filekan aan tagi doonaa. waa kan marka themeka waa kana waxaad ku dhufataa right click kadibna waxaad ku dhufataa extract files kadibna waxaad samaysaa okay. marka waa kana filekeeni oo themeka. marka ha ka welwelin themekani waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose ee descriptionka meesha ayaad kala degi doontaa. marka ugu horeysa sidaan ayuu kugu muuqan doonaa. aad marka waxaa u baahan tahay in filekan unzip aad ku samaysid kadib maxaa loo yaqaanaa sidaan ayuu kuu noqon doonaa. marka waxaad samaysaa ku dhufo sidoo kale ku dhufo. marka themekeyna waa kana filekan ay qoran tahay stone blogger template.xml. marka sidaan ayuu u muuqdaa. okay, marka aan dib u laabto markaasi aan tago qaybta website-kayga. marka waxaad ku dhufataa qaybtii customize dhinaca buttonka kadibna restore leh kadibna upload. marka desktopka aad timaado waxaad ku dhufataa folderkii kugu jiray themekaagi oo hadda anaga aan kusoo sameyn extractionka ku dhufo kadibna themekii .xml-ka ku dhufo
marka waxaa ujeedaa shaqadu wadaa restaurant theme ayuu ku leeyahay, macnaha themekii ayuu soo upload gareeyay. marka themekeyna waa lasoo upload gareeyay. marka aan fiirino siduu u muuqdo markaasi websitekeena hadda themeka aan soo gelinay, waxaad ku dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay view blog ama refresh. waa ujeeda markaas themeka cusub sidaan ayuu u muuqdaa. okay, hoos haddaa u baxdid waxaan xog ayaa ku jir meesha markaasi. okay, marka waxaan sameynaynaa markaasi xogtaani themeka ku dhex jirto ayaan waxaan sameynaynaa markaasi xog annaga aan leenahay ayaan meesha gashan doono hadduu ilaahay idmo. markaasi qaybta labaad ee muuqaalkeyna ayaan gelaynaa. marka waxaa u baahanahay marka ugu horeyso magacan ay ku qoran tahay, tusaale ahaan ninkan wuxuu leeyahay hi I am John Smith. marka magacan meesha ay ku qoran tahay John Smithka ayaa waxaan ku bedelan doonaa magaceeni oo runta ah. markaasi aan usoo laabto markaasi qaybta bloggerka, kadib meesha haday aan ku dhufanay marka themekeen soo upload gareynayna ayaad ku dhufanaysaa 3 dhibic, kadibna waxaad ku dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay edit html ku dhufo. marka ujeeda wuxuu ku keenay koodkan tirabeelka ah ee maxaa loo yaqaana themeka uu ku dhisan yahay. marka inaad raadisid meeshaas ay ku qoran tahay I am John Smith way adkaan doontaa haddaa dhahdo maanta dhan raadinaa, laakiin waxaan ku hayaa qaab fudud aad sameyn kartid. waxaad taabataa control F taabo, kadibna wuxuu ku keeni doonaa search bar yaris aad wixii aad ku qori karto markaasi. okay, marka waxaan raadin doonaa magacaani John Smith, kadibna waxaa imaadaa meeshan. markaasi John Smith ayaa ku qoraysaa John, tusaale ahaan haddaan ku qoro waa kana ujeedaa asaa i keenay John Smith. waa ujeedaa hi I am John Smith meshaeed ayaa waxaad ku bedelaysaa markaad magacaagii oo runta ah. tusaale ahaan Cabdullaahi aan ku bedelin doono magacaygii. okay, Cabdullaahi Maxamuud. marka waxaa ujeedaa markaan safe dhahno in uu isbedel u sameyn doono. safety waatana waxaa leedahay safe dheh. waa la safe gareeyay updatekeeni. marka websitekeena aan tagno hadda waxaa ku qoran meesha waxaa ku qoran John Smith. haddaa refresh aan ku dhufto magacii inuu keenaa la rabaa meesha. markaasi waa kana ujeeda markaasi I am John Smith uu ahaad wuxuu noqday I am Cabdullaahi Maxamuud. marka sidaan ayaa marka hore magacaaga aad u bedelin doontaa hadduu ilaahay idmo. marka qaybtan yar ay ku qoran tahay fiiri, qayb yar uu keenay fiiri oo uu kusoo bandhigayo marka talentii qofka uu dhigay. tusaale ahaan waxaan ahay writer, haddana wuxuu sameyn doonaa waxaan ahay front end developer. okay, haddana u isbedelo wuxuu leeyahay creative developer. marka meeshan ayana sidee u bedeli doonaa. dib u laabo haddaa fiiriso maxaa loo yaqaan meesha haddaa ay ku qorneed John Smith. markaa raadinaynay waxaan sameynay waxaan ku raadinay control F ayaan ku raadinay. hadda markaasi si saa u samaysid isla markii waxaad taabataa control F T, ama waxaad sameyn kartaa adaa si aa u fiirsid Cabdullaahi Maxamuud magaca hoostiis ayay ku jirtay. marka waxaan ognahay daaya Cabdullaahi Maxamuud meeshuu joogay. haddaan dib u laabto aan tago maxaa loo yaqaanaa Cabdullaahi Maxamuud hoostiis waxaan arki karaa fiir, tusaale ahaan fiir I am meeshaan ku jiraa markaasi xogtii markaasi aan raadinayo. okay, waa kuwana markaasi wuxuu leeyahay markii kood waxayd front end developer, creative developer, blogger, paragraph, photographer. waa ujeeda markaasi writer. kuwaan ayaad bedeli doontaa oo waxaad ku bedeli doontaa wax adiga aad u baahanta markaasi. tusaale waxaan dhihi doonaa I am front end developer. okay, sidoo kale waxaan dhihi doonaa graphic designer. okay, graphic designer. okay, marka kuwa anficin waa iska delidi kartaa. tusaale hal mar dooro kadib meeshii sidaas ayaa ugu bixin kartaa kuwaas. okay, meeshan ay qoran tahay writer xitaa waa iska tiri kartaa. okay, waxaad ku bedelin kartaa waxaad doontid. macnaha qodobadan aan soo sheegnay oo kale waan iska dayin kartaa, waan ku bedelin kartaa. marka tusaale waxaan leeyahay mobile
app dev waxaan ahay mobile app developer ayaan ahay. Marka xogtaan aa ogolisid waxaad samayn kartaa markaasi save ayaad ku dhufanaysaa. marka la save galay kadib website-keen imaaw kadibna waxaa ku samaysaa refresh. xogtii anaga aan gelina marka inuu meesha keenaa la rabaa. tusaale waan ujeedaa mobile app developer ahay haye front end developer ahay sidoo kale haye mujahid graphic designer ahay mobile app. marka waa kana markaasi xogtayni sidaa ayaa meeshii lagu gelay. markaas qofka markuu website-kan uu soo galo marka wuxuu arki doonaa xogtayni caadiga ah. marka qaybtan hoose haddaad fiirisid waxaa ku qoran maxaa loo yaqaanaa ama ku sawiran social media accounts sida facebooka twitterka gmailka caadiga oo balaska ah iyo linkedka. marka haddaad doonaysid in qofka uu facebookkaaga uu arki karo tusaalahaan instagramkaaga uu booqan karo linkedkaaga uu profilekaaga uu booqan karo intaan ayaa waxaa soo gelin doontaa meeshan ayaad waxaa soo gelin doontaa websiteka facebookkaaga ama twitterkaaga ama instagramkaaga linkigooda aad soo gelin doontaa. hadhow markii qofka uu click siiyo si uu maxaa loo yaqaanaa si uu geeyo facebookkaaga ama social media accountka midka aad soo gelisay meeshan. tusaale aan sameyn marka si haddaa aan u raadinaynaa marka okay qaybtan hoose I am front end developer iyo meesha hoose imaanaya maxaa loo yaqaanaa si social media accountskan saa u jeedidba. haddii dib aan u laabto meesha haddaa aan bedelay waxay ahayd kuwaan qodobadaan ay ahaayeen. marka qaybtaas hoostoos haddaad fiirsid waxaa ku qoran social media links. haddaad fiirsid qaybta koowaad oo ah markaasi facebook linkiga marka meeshii la gelin lahaa waa halkaani. hadda waxaa ku qoran kaliya hashtagana ku qoran. marka waxaa sameynaysaa facebookkaaga intaad tagtid linkigiisa halkan keenaysaa. tusaale ahaan facebookkayga profileka markaan galo waxaan sameyn doonaa copy linkiga kore aan soo copy kareynaa. okay copy markaan dhaho waxaan imaan doonaa meeshii kadib waxaa meesha ka saari doonaa hashtagga meesha ka saari doonaa kadibna waxaan ku baasi kareyn doonaa maxaa loo yaqaanaa linkiga aan soo copyay. okay hadda facebook postkii waxaan ku bedelnay linkigaani hashtagii waxaan ku bedelnay linkigaani facebooka ahaa. marka hadhow qofka haddii facebook uu click siiyo toos waxaa loo geyn doonaa website facebookeen pagekiisa markaasi ama profilekeeni. marka linkii aad gelisid kadib waxaa leedahay save. markaa save gelisid imaaw maxaa loo yaqaanaa website-kaaga kadib refresh dheh. haddii jeer refresh inaad dhahid waa si xogta u dambeysa loo soo bandhigo marka okay marka waxaad ku dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay facebook. haddaa waxaan soo gelina linki hadda aan soo gelin facebook soomaan. marka haddii facebook aan keli ku siino waxaa la rabaa inuu toos noo geeyo maxaa loo yaqaanaa profilekeen. tusaale ahaan keli ku sii qofka waa kana waxaa la keeni doonaa isla markii facebook pagekeeni ayaa la keeni doonaa markaasi okay facebook pagekeeni ayaa la keeni doonaa. marka hadda si aa u fiirisid marka facebook pagekeeni uu furayay wuxuu qofkii laga soo saaray maxaa loo yaqaanaa websiteka linkigeena. marka xogtayni hadda ma arki karo oo dib ayaa loo soo saaray. marka sidaani waa laga fiican waxaa samayn kartaa tusaale ahaan markii facebook ama iconkan uu facebook click siiyo asoo websiteka uusan ka tegin in page cusub loo furo kadibna meesha loogu soo bandhigo markaasi facebookkeeni okay. marka si xogtii loogu soo bandhigo qofka asoo aan laga saarin websiteka marka waxaa samayn kartaa waxaa imaanaysaa meesha hadda aan ku darnay linkigii facebook ahaa. markii oo aad fiirsid markaad tagtid meesha u dambeyso ayaad waxaad ku qoraysaa target kadibna waxaa leedahay calaamadan equalka ah kadibna waxaa furi doontaa double quote-kaani kadib calaamadan underscore la dhahayo ayaad taaban doontaa kadibna waxaa qori doontaa blank. marka sidaan aa u qortid kadib waxaad soo xiraysaa double quote-ka aa furtay. markaad soo xirtid marka sidaan waa target aa qortay waxaa dhahday equal kadibna calaamadan double quote-ka furtay kadibna underscore-kana taabatay kadibna meesha waxaad ku qortay blank kadibna waxaa soo xirtay maxaa loo yaqaana underscore-kii ayaa soo xirtay. waa intaas kaliya kadibna waxaa leenahay save. markaa save galaysid kadib haddaa imaano website-kii kadibna aan refresh dhahno kadibna aan ku dhufano facebookii waxaa ujeedaa hadda marka wuxuuna keenay
qayb kale ee cusub ama page cusub ayuu noo furay. taa ku dhufano waa kaas wuxuu noo sameeyey page cusub oo na geeyay markaasi anagoo website-keeni dhex joogno marka. Okay, marka inta qaybta kale sidaan ayaa u bedeli doontaa website-ka maxaa loo yaqaan. Tusaale ahaan Twitter haddaad rabtid inaad ku xirtid waa sidii hadda samayn doontaa. Twitter-ka waa kana haddaad fiirisid maxaa loo yaqaan Facebook hoostiisa waa u jeedaa meesha Facebook aan gelinay linkigii ayaan qaybtan hashtag-an ay ku qoran tahay waxaan ku bedelaynaa qaybta Twitter-ka linkigiisa. Twitter-ka tag linkigiisa soo koobiyey kadib meeshaan dhig. Okay, tusaale ahaan kadib haddaad rabtid maxaa loo yaqaanaa inuu page cusub ku geeyo sidii hadda aan sameynay waa kana targetkan ayaad qaadaysaa kadibna soo koobiyey kadib meeshii ugu dambeysay ayaad dhigaysaa markaas xogta meesha xogta u dambeysay kadib ayaad dhigaysaa. marka inaa waqti badan aan geliy maro oo mid walba aan bedelno marka hal xabad lagu tuso waxaa wanaagsan kulkeen in isku dayi kartid markaasi. Okay, linkiga qaabka aan u bedelnay ayaad u bedeli doontaa. haddana hoos u soo baxno qaybta kale ugu muhiimsan waxaa waaye qaybtan weeyaan si ku bedeli karaa markaas. Okay, marka ugu horeysa waxaa waaye about me gaani sidiisa aan ku daano. haddii wax kale aad doonaysa inaad ku qortidna waa samayn kartaa. kaliya waxaa imaanaynaa maxaa loo yaqaan qaybta website-ka dhexdiisa kadibna waxaa ku qoraysaa control F. markaan control F taabanay wuxuuna keeni doonaa ujeeda searching-kii. marka aan u soo laabto meeshii wax ugu dhow hadda aan raadin karno waxaa waaye meeshan ay qoran tahay John Doe. marka haddii John aa qortid inuu noo soo saaro rabnaa click-si kadibna ujeedaa qaybtan uu halaad ka saaray ay ku qoran tahay John Doe ayaa waxaad ku bedelaysaa magacaaga markaas. Okay, magaciina ayaad ku bedeli doonaa hadhow. su'aal ahaan magac waxaa leenahay Cabdullaahi. magac Cabdullaahi ah ku bedelashay kadibna wax kale ma sameynaysa save ayaad leedahay. kadib aan imaano website-keena kadibna refresh aan dhahno meesha John Doe ku qornad waxaa lagu bedelay magaciini Cabdullaahi ahaa. kadibna waxaa rabnaa qoraalkan yar ee meesha ku qoran in aan bedelno aan ku qorno qoraal fiican oo wanaagsan. mar qoraalkan saan u bedelno qoraalkan waxaa ujeedaa inuu hoos yaalo magacii hadda aan bedelnay markaasi. hadda aan soo laabano dib magacii hadda aan bedelnay ee ahaa Cabdullaahi hoos haddaad fiirsid qoraalkan waaye. Okay, waxaa hadda aan bedeli doonaa qoraalkan dhirka badan kadibna iska tir qoraalkani dhirka badan. waxaan ku bedelaynaa markaasi qoraal anaga noocaas ah markaasi ayaan ku bedelanaynaa waxaanan waa iska tiri kartaa. Okay, marka waxaa dhigi doontaa qoraalka adiga aad doonaysa. tusaale ahaan waxaan ku qoraynaa meesha hadda fiiri sidaan qoraalkaana ku qoray I am a skilled freelancer, graphic designer, web developer, video editor with over 2+ years of experience in the field. marka qoraalkaad doonaysid oo ku qancinaya ayaad ku qoraysaa kadibna save haddaan ahno saan u aragno qoraalkani kadibna aan dib usoo laabto maxaa loo yaqaana meesha website-keeni qoraalkan waxaan rabnaa inaan bedelno qoraalkii hadda aan ku bedelnay inuu noo soo baxo. refresh ku sameey waa ujeedaa marka qoraalka meesha ku jiray waxaa ii bedelay qoraalkaygii markaas waa ujeedaa xogtaana noo bedeshay markaas. Okay, magaciyaan bedelnay xogta yar anaga nagu saabsaneedaan bedelnay. haddana waxaan bedelaynaa tusaale ahaan streetkan tusaale adresskiis ninkan. sidoo kale waxaan bedelaynaa magacii. sidoo kale waxaan bedeli karnaa emailkii oo isku dhow yihiin oo ujeedaa tusaale magacaan ka baxay xogtii kadibna kuwaan waxaan rajeynayaa inay hoos yaalaan waa kale markaas magacii xogtii kuwan waa kuwana markaas meeshii hoos yaalaan xogtii. marka xogtaadi kuwa bedel. Okay, tusaale ahaan adresskaaga waxaa rabta ku bedel. Okay, tusaale ahaan waxaa dhigi kartaa kilometer 4 Muqdisho saan ayaa u bedeli kartaa kadibna waxaa dhigi kartaa save. adreskan bedelnay hadda haddii website-ka dib ugu laabano kadib refresh aan dhahno waxaa ujeeda meeshii waxaa bedelay hadda adreska anaga aan soo gelinay kilometer 4 street Taleex Muqdisho aan haddaan dhahno markaasi. lambarka sidaa ayaa u bedeli doontaa emailka sidoo kale. tusaale ahaan hadda aan bedelno lambarka iyo emailka. lambarka waa kana lambarkaa ku qoraysaa adoo furaha ka bilaaba. tusaale ahaan furaheena 252 kadib lambarkaaga 6 ha noqdo ama 5 ha noqdo ama 4 ha noqdo ama ewer furaha gelinaysa kadibna lambarkaaga meesha gelin doontaa. Okay, meeshan kadib waxaa gelin doontaa emailka hadda email leedahay. Okay, email ayaad gelin doontaa. tusaale ahaan qofka emailkaaga hadduu rabo inuu kula soo xiriiro waxaa gelin doontaa emailkaaga meesha. tusaale ahaan
emailka hadduu yahay cali cumar 232 kadibna @gmail.com waa kaas emailka saas ku bedeshay kana waa website-kaagii haddaa aad samaysataa gelin kartaa okay tusaale ahaan www.xlyz.com amana dhigi kartaa okay kadibna safe ayaa leedahay xogta markaa bedesho kadib safe markaa dhahayd haddii tusaale ahaan refresh aad website-kaaga xogtii waa ujeedaa waa la bedelay emailkii waa la bedelay numberkii waa la bedelay adresskii waa la bedelay marka sidan ayaa u bedeshay maxaa loo yaqaanaa qaybtan marka waxaa noo dhiman qaybtan kale aa ujeedid my professional skills xirfadaha aad leedahay ayaad samayn kartaa tusaalaha inaad bedeshid marka qaybtan waxaa kale maana xirfada iyo mid wali meesha aad ka joogto markaasi okay marka my professional skills ayaan fiirin doonaa ayana meesha haddaan kusoo laabano hadda waxaan maraynay ama aan bedelnay maxaa loo yaqaanaa qaybtan ay ku qoran tahay adresyada iyo gmailka haddaan hoos usoo baxdid waxaa arkaysaa meesha ay ku qoran tahay my skills oo ujeedaa my skills markaasi professional skillska sidaa ku daa marka waxaan bedelayna tusaalahaan qoraalka meesha ku qoran qoraalka yaraa aan bedelayna tusaalahaan kan iska delid kadibna qoraalka doonta ku bedel tusaalahaan qoraalkan yariskan ku bedel tusaalahaan waxaan ahay here are the skills levels I have as a web developer, graphic designer iyo video editor tusaalahaan waxaa dhihi kartaa kuwaani soo socda waxaa waaye xirfadaha ani aan leeyahay ee ku saabsan hadday ahaa leed graphic designerka iyo web developerka iyo video editorka marka xogtaada ayaad gelin doontaa mid wali meesha aad ka joogto markaasi sidoo kale meesha wuxuu soo celiyay haddaa ujeedid maxaa loo yaqaana social media iconska daai camal haddaan dib u laabto waa ujeedaa meesha waxaa ku qoran social media iconska kuwaa markaas si loo bedelaa haddaan soo aragnay meesha waa ka saari kartaa gaw ahaan badaarad waa diridi kartaa haddii aad jeceshaan meesha waa kuu yaali karaa markaasi laakiin si loo bedelaayo xogteedii haddaa ay koran kusoo arkan markaasi qaybtii hore marka hoos u soo bax waxaan rabnaa markaasi progress bariska inaan bedelno okay progress bariska aa ujeeda waa kuwaane tan waxaa ujeeda calaamadan cagaarta ah 9% waaye calaamadan kale 70 weeyaan calaamadan kale 95 weeyaan marka sidaahan ay u samaysan yihiin maxaa loo yaqaan asii progress bariska marka sidee loo bedelaa markaasi progress bariskaani iyo xogta ku qoran numberka ahaan 90 meesha tahay 100 waa ku bedelan kartaa meeshan web designer ay tahayna waxaad ku bedelan kartaa waxaa rabtid soo laabo tan ugu horeys waxaa waaye maxaa loo yaqaan asii web design haddii wax kale ay kuu tahay waad bedeli kartaa tan waxay ku xiran tahay tusaalahaan aan hadday maxaan soo dhahnay markaad kor haddaa fiirisid mujada video graphic designer ahay mobile app developer sidoo kale front end developer kuwaana marka meesha ku bedeli karta tusaalahaan meesha waxaan leeyahay meesha qoran tahay web designer waxaan dhihi karaa front end developer ayaan dhihi karaa okay kadibna percentagekan 90 meesha ku qoran tahay waxa la bedelayo oo progress bariska ah markaasi macnaha kan waa qoraalkii caadiga ahaa ee percentage meesha imaanayo laakiin dhererka maxaa loo yaqaana si calaamada cagaarka waxa go'aaminaya waxaa waaye tiradan meesha ku qoran aa ujeedid okay tusaalahaan tiradaani meesha 90 ay ku qoran tahay haddaan dhahno 80 kadibna aan save gareyno haddaan imaan marka meeshii kadibna refresh aan ahaan website-ka meesha waa ujeeda markaas in maxaa loo yaqaana si calaamadii isdhintay meesha hadday 90 intaad waxay gaartay maxaa loo yaqaana si xooga gadaal u baxday sababta wax kale maana haddaa fiirisid anaga meesha marka waxaan dhahnay fiiri waxaan ka dhignay 80 aan ka dhignay 10 hoos u dhignay si haddaa u fiirisid inta waxay qoran tahay 90 ka isma bedelin sabab maxaa waa sababta wax kale maana meeshii kore ay ku qorneed sorry aan soo zoom gareeyo meeshana ujeeda 90 ku qoray isma bedelin okay marka inta laga rabo marka tiradan inaad ka bedeshid tan waxaa waaye tiradan 80ka iyo aan ku qoray meeshan
waa dhirirka leenkaas cagaarka ah. meeshaan wax 9 aan ku qorantahay waxaa waaye waa lambarkaani meesha ku yaalo. marka saa u bedeshid lambarka inuu waxaa rabtaa lambarkii inay islahaadaan calaamada cagaarka ah. 80 meeshaan aad dhahday inta dhow waxaad ka dhigaysaa 80. haddii inta 100 ku tahay 100 kale tusaale ahaan inta waxaan ka dhigi doonaa 100 fiiri 100 meeshaan marka waxaa laga rabaa inaan ku qorto tusaale ahaan 100 inaan ku qoro. okay kadibna waxaan dhahaa save. labada dhinac marka in isbedelaan la rabo kor 100 tira ay kusoo qoranto calaamadeen inay full noqoto ay buuxsanto. marka daa'imaan fiir meeshii waxaan rabnaa calaamada cagaarka inay full noqoto meeshaan 9 ay qoran tahay 100 inay isku bedesho maadaama 100 aan ku qornay. refresh aan dhahno marka waa kana waa u jeedaa cagaarkii uu buuxsamay meeshiina waxaa ku qoran 100% markaas. okay tusaalahan web development-ga sidoo kale sidii ayaad u bedelaysaa meeshii imaw keeda front end waa ka baahan hoos imaw qoraalkan waa u jeedaa web developer meeshii ku qoran tahay waxaa ku qor anta tusaalahan mobile xogtii aniga aan geliyay kor la gelin doonaa intana mobile developer mobile app dev kadib waxaan rabaa 180 inaan siiyo meeshan 70 ay qoran tahay 80 igu bedel qaybtan kalena 80 igu bedel si isku lahaadaan markaas. okay 80 aan ku bedelay kadib waxaan dhahaa save kadibna refresh da kadibna u jeeda mobile app developer la keenay sawirkii xoogaa 80 u tagay calaamad in 80 ay igu soo qoray. okay marka kuwaani tusaale ahaan waxaa u baahantahay kuwa qaar inaad ka takhalustidba oo 2 3 4 aad kusoo ekaysa shaqadan meesha skillskan ahaan waa samayn kartaa waa delete kartaa inta kale. okay tusaale ahaan meeshaas waxaa ku qoran xogtan aad ujeedid tusaalaan wordpresskii qaybtan wordpresska tusaale inaad dilidaa rabtaa wordpresska tag waa kana sidoo kale waxaad tagtaa percentage ma jeedo hal mar wada dooro labadooda markaad doorto kadibna dalada ku dhufana kadibna waa save gareynaysaa. marka u jeeda marka save la dhaho hadii meesha aan soo galo refresh aan ku sameeyo wordpress inuu meesha ka baxaa rabo marka waa kana meesha wordpress sida ay ku baxdo marka had laakiin waxa taagan calaamadii waxaan u yaal progress bar ayna tag meesha dalad marka waa kana qaybtan hoose waa progress bar oo ujeed meesha 60 ay qoran tahay qabo ayana sidoo kale dalad ku sameeyo kadib meesha marka imaan refresh aan ku sameeyno waa u jeeda marka meesha waa laga saaray wordpresskii calaamadiisa waa laga saaray marka. okay sidaan ayaa ugu saari doontaa waxdan u baahnay. arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye sawirka inaan meesha ka saarno aan ku bedelno sawirkeedii tusaale ahaan kan camal waa u jeedaa meesha sawirkii waxaa yaala sawirkii yaala sidee sawirkan u bedeli karnaa asna dhib ma lahan sawirka intuu yaala qoraaladan aan bedelayni kama dheer meeshaas ayuu yaalaa marka wuxuu u dhaxeeyaa labadan maxaa loo yaqaan xog ayuu u dhaxeeyaa. marka sawirka saa u bedelno sawirka waxaan ka raadin karnaa meeshaani tusaale ahaan wuxuu u dhaxeeyaa sawirka xogtaani iyo xogtaan dhexdooda u dhaxeeya labadan xog. marka haddaan fiirino meeshii aan ku laabano xogtii koowaad waatana u jeedaa xogtii kalena waatana hoosaan ku qortaa marka sawirka waxaa waaye meeshaan ka raada markaas sawirkan waa kana dad jpeg macna extension kan u leeyahay soo ma sawirka jpeg png sawirada saasa loo soo fikiraa marka sawirada saan u badan waxaan u baahanahay sawirkeeni marka hore inaan internetka aan soo gelino kadibna linkigaas meesha yaala aan soo qaadno meeshaan aan ku baas kareyna linki meeshaan ay ku qoran tahay maxaa loo yaqaanay calaamadan laga soo bilaabo ilaa inta xogtaan ina meesha ku bedelnaa la rabo markaas. okay ilaa halahan inaan bedelno marka sidee u sameynaynaa dib aan u laabano isla website-keeni aan u jeedno ayaa waxaan sameynaynaa new post aan ku dhufanaynaa kadibna waxaa ku dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay insert image kadibna upload from computer ku dhufo kadibna choose file ku dhufo kadibna sawiradaada marka meeshaan
kasoo dooro. Marka tusaale ahaan sawirkaana soo doortay, waa kana xogtii sawirka waa la xireen rabaa. sawirka waa kana meesha waa lasoo geli select aa dhahay, kadibna select aan ku dhuftay. waa ujeeda sawirka marka meeshaan ayaa lasoo dhigay. waa kana marka sawirka markuu soo galo tusaale ahaan waxaa samayn kartaa cabirkiisa yareyn kartaa. tusaale ahaan haddaa ku dhufto meeshaan ay qoran tahay calaamadan change-ga, kadibna ujeedaa small x large organize waxa doortid marka ka dhigo cabirkiisa. tusaale ahaan medium ay dooran, kadib waxaan leeyahay update. marka waxaa u baahan sawirkan linkiisa inaad soo koobiyeysid, hadhowna meeshii keentid. marka waxaad samaynaysaa sawirka ku dhufo, kadibna right click sii, kadibna waxaad ku dhufataa meesha qoran tahay copy link address meesha qoran tahay. okay, copy link address ku dhufo. hadda waxaan haysanaa linkay sawirkeena haysanaa. tusaale ahaan hadda meeshaan aan tago aan ku baas gareeyo sawirkan linkigiisa oo enter aan dhaho, waxaan rabaa marka sawirkii inaan arko inuu linkigaasi kasoo muuqan karo iyo in kale. waa kana ujeedaa sawirkii linkigii marka meel kale aan geeyey waa ujeedaa oo isoo muuqday. marka meeshii usoo laabo, kadibna post publish ma dhehaysid, waxa calaamadan flart geeska taabo, dibaan u laabanay. waxaan kusoo laaban doonaa themekeeni ku dhufo, kadibna edit html ku dhufo. marka waxaan raadinaynaa positionka uu sawirkeeni yaalay. tusaalehaan control f aan ku raadin jirnay markaan wax raadinayno. tusaalehaan meesha u dhow wuxuu ahaa magaca meesha ku qoran cabdullaahi, meesha ku qorneed cabdullaahi meesha ku qoraa. markaasi saa u jeedaan, kadib interaan dhahaa. cabdullaahi koowaad ma rabo, cabdullaahi labaadan dhe enter. hoos haddaa u baxno waxaan arkaynaa markaasi qaybta linkiga ee sawirkeena. waa kana markaasi qaybtan sourciga ma. marka meeshaan waxaan rabnaa inaan tirno linkigaani, kadibna aan ku bedelno maxaa loo yaqaana linkigii aan ku bedelno. okay, marka tir. kadibna waxaad ku baas garaysaa wixii aad soo koobiyeysa control v. marka waa ujeedaa marka hadda dib aan u laabto aan fiiriyo meesha sawirkaana saaran. markaan save gareeyo waxaan rabaa xogtii sawirkan inay iisoo baxdo. calaamada safeka ku dhufo. okay, markaa save garaysa kadibna aan usoo laabano, marka refresh aan sawirkan meesha ka baxa rajaynaynaa oo sawirkeena cusub uu noo soo galo hadduu ilaahay idmo. waa kaas marka ujeeda meeshii waxaan ka saarnay sawirkii hore ugu jiray, waxaan gelinay sawirkeena anaga noo khaas ah markaasi. okay, markaa fiirsid markaasi waxaan soo sameynay qaybta kore magacaan soo gelinay, qaybtan yaraan soo habeynay social media. macnaha haddii qofka uu ku dhufto in la geyn karo maxalaasi akoonadiina social media hadday ahalaan Facebook, Instagram ama Twitter iyo linkedkaasi aan soo bedelnay. sidoo kale waxaan soo bedelinay, waxaan sheegnay meeshan ay qoran tahay about us ama about me meesha ku qoran tahay, oo ah markaasi xog yar adiga kugu saabsan markaasi magacaaga iyo xirfadahaaga, meesha lagala soo xiriiri karo, sidoo kale professionka ama shaqada skillska aa leedahay ama xirfadaha aa leedahay. marka waxaa imaanayna meesha ay qoran tahay markaasi surfaceska. marka meeshaan marka portfolio laga hadlayo waxaad ku qori doontaa maxaa loo yaqaana surfaceska ama shaqooyinka aa qabatid aad ku qaban doontaa. tusaale ahaan haddii aan dib u laabano haddaan ku tus maxaa la dhahaa portfoliogii hore, meesha waxaa ujeedaa surface markii qofku u imaado isla markii wuxuu garan karaa shaqooyinka ani aan qabanayo. okay, shaqooyinka aan qabanayo ayuu garan karaa markaasi meeshaan. tusaale ahaan waxaan ahay web developmentiga, graphic designka iyo tusaale ahaan video editing. marka waxaan camal ayaad la imaan doontaa adna goobtaada. marka meeshaani markaan rabno inaan bedelno surface, markaan rabno inaan bedelno waxaan ognahay ma meeshaan surface inay ku qoran tahay. meeshii hoos meeshii tag, kadibna control f ku dhufo. meeshaan waxaan ku qoraynaa markaasi surfaces. oo ujeeda isla markii wuxuu isoo qabtay surface ayuu isoo qabtay. waa tana surface. mar surfacekani waxaan rabnaa inaan bedelno xog annaga aan u baahana marka aan ku bedelno. tusaale ahaan meesha ay ku qoran tahay awesome feature oo meeshaan ah qaybtan ah aan rabnaa inaan bedelno oo aan ka dhigano waxaanaga shaqooyinka aan qaban. tusaale ahaan shaqooyinka aan qabanayna waxaa kamid ah leenahay web development camalaan dhihinaa. okay, web development. sidoo kale waxaan rabnaa inaan bedelno tusaale ahaan web development qoraalka yar hoose maana maxaa waa marka website. tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa
qoraalka marka waa kana qoraalkii meesha ku qoran mar qoraalka waa kana qoraalkan yaraha waxaa ku bedeleysi doontaa qoraal marka anaga noo qaasa ama web development wax ku saabsan qoraalkan qoraal jira maahan markaasi qoraal anaga aan rabno tusaale ahaan I will build a beautiful tusaalahaan waxaan kuu samayn doonaa ama ganacsiga waxaan u samayn doonaa website oo responsive ah oo aada u fiican tusaalahaan haddaan ku save gareeyo markaasi save aan dhaho markaad save gareyso markaa imaan marka qaybtan ay qoran tahay awesome features iyo qoraalkan waxaan rabnaa in xogtayni uu ku bedelo tusaalahaan refresh haddaan dhaho waa kaasa marka tusaalahaan web developmentan ku qornay I will build a beautiful and responsive website for your business marka ujeedaa ma dhibadna inta kalena waxaa u bedeli kartaa sidaan iyo silamida marka tusaalahaan qaybtan ku xigta ayaa aan ku darna markaas xirfadeena qaybta ku xigta hoosteeday taalaa marka fiiri okay tusaalahaan meesha qoranta animated elements waxaad ku bedelan doontaa qoraalkaaga okay tusaale ahaan waxaad tahay social media manager aad tahay waxaad ku qori doontaa social media manager kadibna qoraalkan hoose ayaa bedelaysa waxaad qoraal macquul ah markaasi ama shaqada aad qabanaysid qoraalka turjumaya okay tusaale waxaad dhihi kartaa I will manage your social media accounts to grow your audience marka intaa camal dhihi kartaa kadibna waxaa leedahay waa save gareynay qaybta marka ay ku qoran tahay maxaa loo yaqaana animated elementska waxaa rabnaa in isku bedesho markaasi wixii anaga hadda aan ku bedelnay okay kadibna refresh aan hano markuu save garay kadib waa kana social media manager kadibna waxaa waa I will manage your social media accounts mujadu and grow your audience marka sidaan ayaa loo bedeli doonaa tusaale ahaan haddii qayb ka mid a aad rabto inaad iska deladidba aysan ku jirin maxaa loo yaqaanaa xirfadahaaga tusaalahaan inta waxaa noo yaalmo lix xabo marka waxaa u baahanta inaad wax ka deladid ama waxaa kusoo dirtid markaa rabta inaad deladid wax kalema sameyn tusaalahaan waxaan daladeynaa qaybtan ay ku qoran tahay fast support meesha ku qoran tahay aan daladeynaa marka hoos u soo bax fast support aan raadinayna meesha ku qoran tahay waa kana qaybtan au jeesaman fast support kuwa waxaan daladi doonaa waxaa loo yaqaanaa qoraalka meesha ku qoran aan daladi doonaa waa kaas waa tiray kadibna waxaan daladi doonaa qaybtan paragraphka xogta warbixinta la gelinaya daladi marka meesha saas waxaan ku bixiyey meesha wax ku qornaa kadibna save aan leeyahay okay markaa save garaysid waxaa rabnaa qaybta inay baxdo waxaa leeyahay markaasi save refresh marka ujeeda qoraalkii yaraa wuu baxay sidoo kale waxaa baxay qoraalkii kale meesha ku qoran hadda waxaa soo haray iconka meesha yaala iconka si lagu bixinaa tag meeshii ku laabo iconka markaasi waxaad ku fiirin doontaa icon meesha qoran tahay ujeeda soomaan icon meesha qoran tahay oo markaasi jack marka iconkaana daladeysaa kaliya tusaalaha halahaana dooranaysaa kadibna waxaa sameynaysaa dalad kadibna waxaa sameynaysaa waa save gareynaysaa markaa save garee markadaa meesha imaano kadibna refresh aan dhahno waxaan ujeednaa iconkii inaan ka takhalusnay okay marka mid waliba saas ayaad u daladi doontaa hadduu ilaahay marka mid waliba saas u daladi tusaalahaan waxaa rabtaa inaa midta aad ku dartid tusaalahaan inta waxaa yaalan 1 2 3 4 5 xabo mid kale inaad ku dartaa rabtaa sidee ugu dari doontaa waxaa ugu dari doontaa tusaale ahaan waxaan tegaynaa mid nadiif ah oo dhammaystiran tusaale ahaan waxaan rabnaa kan camal ayagan ratiinada meesha qoran tahay waa kana soomaa meeshu ka bilaabana intay ahayd ayaga waxay leeyihiin column ay ka bilaawdaan iyo meel ay ku dhammaadaan ay leeyihiin marka waxay ka bilaawdaan haddaa fiirisid columnka diftaani meesha qoranta diftaani ay ka bilaawdaan xogta okay diftaan hadday ka bilaawdaan waxay ku ekyihiin markaasi hoos haddaan usoo baxno
ilaa waxay ku ekeyn nadiiftaan. Okay, halahaana koobiyeysaa. Halaha markaa koobiyeysid waxaad dhigan kartaa meeshaad doonto. Tusaale ahaan waxaan rabnaa meesha inaad dhigano. Okay, meeshaan waxaan sameynaynaa control v aan ku dhignaa. Haddaba markaan koobiyeyno control c, hadda waxaan leenahay control v, kadibna aan save gareeyo marka. Okay, kadib meesha haddaa imaano aan refresh dhahno, marka ujeeda meeshii labo waxay noqotay labo retiina ayay noqotay. marka meeshaan waxaad ku samaysan kartaa maxaa loo yaqaanaa waxaad doonto aad ku samayn kartaa. sidoo kale waxaad samayn kartaa meeshan ay ku qoran tahay iconada waa bedeli kartaa, oo tusaale ahaan iconada waa badan yihiin soomaan. Okay, marka iconka rabtaa ku bedeli kartaa meeshaas. marka meeshaan hoosan surfaceska waa ka dhamaanay iyo qaababka loo bedelayo. waxaan oo dhiman qaabtan kale ee muujinaysa maxaa loo yaqaanaa projectadii iyo wixii aad soo qabatay. Okay, tusaale ahaan qaybtan waxaa ku qoran maxaa complete projects. inta project macnaa aad dhamaysay ama aad qabatay. intan waxaa waaye awardska abaalmarinada aad ku guuleysatay. intan waxaa waaye haddii Facebook aad leedahay Facebook page, inta qof kugu xiran camal. Okay, projectada hadda wadidna oo current ku ana inta la eegay. marka qaybtan marka u bedelaysaa waa fududahay. qaybtan hoose ee surfaceska ay hoos taala. marka ayana qayb surfaceska ayaad hoos tagaysaa. surfacekan ku jirna hoos tagaysaa. marka waa kana markaas qaybtan weyn xogta meesha lagu wada. tusaale ahaan complete projectiga kan ahaa tiradan 300 meeshay tahay waxaa rabtaa ku bedeli kartaa. tusaale ahaan meeshan ay qoran tahay hadda 300 oo ujeedin Soomaaliya 310 meesha ay tahay waxaad ku bedeli kartaa waxaad doontid. tusaale ahaan waxaad dhigi kartaa projectada aan dhameeyay waxaa waaye 30 xabo camal aad dhigi kartaa. kadibna save aad dhihaysaa. kadibna waxaa imaanaysaa meeshii refresh samee. meesha 310 inay isku bedeshaa Allah. Haakas marka 30 ayay isku bedeshay meeshii. tusaale ahaan design award haddii ay jiraan maxaa abaalmarinada aad ku guuleysatay. meeshaan ku sheeg inta ka heli karaa qaybtan hadda aan tagnay. meesha complete project hoosteeda waatana design award oo 15 meeshay tahay ayaad waxaad ku bedeli kartaa. tusaale ahaan hal xabo ama ayaad dhigi kartaa ama 2 ama 10 waxaad doontid ayaa meesha ku bedelaysaa. Okay, refresh haddaan dhaho meeshaan ay qoran tahay 15 markaasi in halkaas la ugu bedelaa rabarkaas. waa kana ujeeda Soomaaliya hal ay isku bedeshay. Okay, haddii Facebook page aad leedahayna inta kugu xiran inta ku sheegi kartaa. tusaale ahaan ninkan waxaa ku xiran 39,000 qof. markaas iyaa kugu xiran meesha ku sheegi kartaa. tusaale ahaan meeshaan ay ku qoran tahay 39,000 aad waxaad ku bedeli kartaa intaad doontid. tusaale ahaan anaga waxaan ugu xiran 10,000 camal aan ugu xiran leenahay. Okay, kadib save gareey. ha iloonina wax save gareysa. marka kadib meesha imaaday refresh aan dhahay. Facebook gantada inay isbedeshaa roo markaasi waa kaas 10,000 aan ugu xiran. meesha ay qoran tahay current projects wax kale maana projectiyada hadda aad wadid macnaa gacanta ku haysid waa imisa meeshaan ayaad ku sheegi kartaa. Okay, marka tusaale soo in loo project waaye aad waxaa leedahay current hoos ima. waa kana current project meesha qoran tahay 32 qoran tahay. waxaa dhigi kartaa had 3 project ay gacan ku haya camal. kadibna save gareey. kadib meeshii soo gal refresh dhah. waa kana meeshii sidaan ay isku bedeshay. marka meeshii waa arki karnaa ma qaybtan si loo bedelo. marka waana bedelnay ayagoo dhan. sidoo kale marka waxaa jira portfolio markaas shaqooyin hore u soo qabatay hadday jiraan meel lagu soo bandhigi lahaa. tusaale meeshaan waa meeshaan ay qoran tahay maxaa loo yaqaanaa portfolio hoosteeda inta waxaa la rabaa in waxaaga ay soo galaan. marka sidee loo sameeyaa intana inta waxaa la sameeyaa meeshii aan ku laabano kadibna dib u laabano. waxaa u baahan tahay inaad post aad soo gelisid. postiyada aad soo gelin doontid ayaa halkaan imaan doonaan. tusaale ahaan website-ka haddaan ku laabto fiiri meesha portfolio ay qoran tahay waxaan soo gelgeliyay markaasi shaqooyinka hore aan u qabtay meeshaan soo gelgeliyay. marka saa u aragtid dadka say u arkaan waxyaalaha soo qabatay projectyada meeshaan soo gelin kartaa. Okay, marka portfolio xogka soo gelis waxaa sameynaysaa waxaan ka baxnay meeshaan ka baxnay new post aan ku dhufanayna.
kadib waxaa leenahay image ahaan usoo gelina upload from computer. tusaale ahaan waxaan isticmaalnay thumbnailkii muuqaalka ka horeeyay aan tusaale ahaan soo gelinayna meesha marka sawirka uu kusoo galay kadibna waxaa sameysaa select image ku dhufo. sawirkii waa kan intuu noo soo galay. waa weyneyn kartaa geesaha adoo qabanaya sidaan u weyneyn kartaa ama waa yareyn kartaa adoo geesaha qabanaya. okay marka hadaad qoraal waa ku dari kartaa sawirka macna qoraal ahaan qoraal waa raacsin kartaa. hadaad saan waa ku dayn kartaa. okay qoraal ahaan waa raacsin kartaa waa kaasaa bala waa qor kartaa saan waa ku dayn kartaa. marka saan aan ku dayo had marka waxaan rabaa inaan sameeyo publish aan dhaha rabaa si hadhow sawirada meesha uu imaado. marka waxaa leeyahay publish yes confirm dheh. waa kan marka sawirka meeshaan uu soo galay asoo title la'aan ah. waxaan sameyn doonaa dib aan u laaban doonaa refresh aan dhihi doonaa. marka sawirka marka bartaan hoose inuu imaado la rabaa. marka waa kaas u jeedaa portfolio hadda waxaa noo soo galay sawirkeennii aa noo soo galay. haddaan ku dhufanin marka wuxuuna geen doonaa sawirkii dhan waana tusaa. marka sawirkii oo idil ayuuna tusi doonaa. waa kaas sawirkii oo idil ayuuna tusaa markaas. okay marka sidaana loo soo gelinaa maxaa loo yaqaanaa sawirada iyo projectyada aa qabato. marka inta aad kusoo daraysaa waxaa sameynaysaa adoo banaanka jooga waxaa sameynaysaa new post kadibna postigii ama sawiradii aad soo gelinaysaa projectyada aa qabatay. okay marka qaybtan aad fiirsid maxaa loo yaqaanaa waxaa noo xigo say hello to me. meeshan waxaa si automatic u shaqeyn doonta. tusaale ahaan qofku markuu website-keen uu soo booqdo waxaa loo yaqaanaa uu ka helo xogtayni hadduu rabo marka isla markaas inuu xiriirna la sameeyo intuu nagala soo xiriiri doono. marka waa kana marka meeshan oo ah say hello to me qaybtan wuxuu ku qori doonaa magaciisa tusaale ahaan cali kadibna meeshan wuxuu ku qori doonaa emailkiisa. okay tusaale email aan isgelin doonaa oo aan jirin saa markaan dhaho magacii aan geliyo emailkaygana aan geliyo kadib maxaa loo yaqaanaa boqoshada ujeedada macnaa kaa lahaa inaan kula soo xiriiro. tusaale ahaan waxaan rabay marka fariintan camal qofku soo qora kadibna wuxuu ku leeyahay send message. haddii fariintan in loo send uu dhaho qofka si toos waxay u tagi doontaa macnaa boqoshadaada emailkaaga kusoo dhici doonta fariimahan. adna marka qofka isla markii waa la xiriiri doontaa oo wixii akhbaar ah aad kaga baahneed ayaad u sheegan kartaa. okay markaas emailkaas aan ku qoray iyo magacaas xogtaan markaan send aan dhaho your message wuxuu leeyahay markaas has been sent ama message-kaaga waa la diray. hadda tusaale ahaan aan dib aan ugu laabto emailkii aan ku samaystay maxaa loo yaqaanaa blogayga ama website-kayga haddaan fiiriyo waxaa arki kartaa portfolio markaas message-ka ay heshay. tusaalahan refresh haddaan dhaho qofka message-ka iisoo diray isla markii u arki doonaa. qaybtan kor fiiri mujeedin new message aa heshay. okay haddaan ku dhufto new message-kaasi waa kana ujeedaa ninkan xogta iisoo qoray waa arki karaa magaciisa iyo emailkiisna waa arki karaa markaasi. okay markaasi sidaana ay dad kugu soo hagaagayaan ama fariimaha iyo warbixintii ay kugu soo dirayaan markaasi noo welwel markaasi hadda kadib haddii lagu weydiiyo portfolioga ayaan u baahannahay noo soo dir haddii lagu dhaho maanta kadib waxaad haysataa portfolio qurux badan oo aad qof walba u diri kartid oo haddii facebook page aa leedana ku xiran kartid dadka ay kula soo xiriiri karaan oo warbixintaadii ay si dhaqso ay ku heli karaan markaasi. okay qaybtan hore ay qorta maxaa la siiya dhinacani xogtaani waa ujeeda xogtii kore aan kusoo buuxinay oo kale weyaan. sidee loo bedelaa tusaale ahaan adresska iyo emailka daarabta inaad bedeshid wax kale maane meesha hadda aan joognay say hello to me tusaale ahaan waxaan tegi doonaa themekayga hoos imaa meesha qorantahay themes aan ku dhufanaa
siimkayga asaa ugu horeyso maa waxaan leeyahay markaasi edit html meesha markaan joogo marka waxaan inta wuxuu ka kooban boqolaal codeska marka saa ugu heshid waxaa control f taabo waxaa raadinaysaa u heshid inta marka xog ku qoraysa aan marka waxaan rabaa okay mar qaybta marka saan u raadin tusaale address camal ama telefoon camal waxaan ku raadin doonaa okay tusaale ahaan meesha markaan soo imaado markaasi waxaan qori doonaa control f taabatay sorry control f taabatay kadib waxaa raadisay maxaa loo yaqaanaa xogtii ahayd telefoon raadiyay meeshaan ila fiiri telefoonkan markaas interaan dhahaa oo ujeeda markaas wuxuu i keenay qaybta telefoonka ayuu keenay marka waa ujeedaa telefoon Soomaali xogtaana bedeli kartaa markaas xogtaana ayaad bedeli kartaa tusaalahaan lambarada meeshan ku qoran maxalada telefoonka ayaan bedeli karaa lambaradii rabaan ku bedeli karaa okay tusaalahaan lambaradan haddii meeshan ku qoran aan ku bedelo lambar tusaalahaan hal tusaalahaan kan aan tirtiro aan lambarkan ku bedelo okay lambaradaada geli adi kadib aan save gareeyo markaa save gareys kadibna refresh markaa dhaho xogtaan inay isbedeshaan oo meeshan ku qoran waa kaasi xogtii sidaan ayay isku bedeshay markaasi kuwaan waad bedeli kartaa oo sidii hadda aniga aan sameeyey ayaad ku sameyn kartaa tusaalaha meeshan ay qoran tahay adresska ayaan rabaa inaan bedelo oo ku qoro adresskii kore aan kusoo sheegno tusaalahaan adresska kore aan kusoo sheegno kan Soomaa kan soo koobiyey isla adresskaas inaan isticmaalo rabaa meesha imaw meesha ay ku qornad adress makraade okay email waa ujeedaa adresska waa kana markaas adress waa kana markaas waxaan sameyn doonaa xogtaan dhan ka saari doonaa kadibna waxaan sameeyaa control v xogta la geliyey kadib save dheh okay marka haddaan meeshii imaano hoos kadibna refresh aan dhaho meesha waxaan rabaa marka xogtii inay isbedesho adresskii iyo inay isbedelaan la rabo marka waa kaasa marka adresskii sida ayaa lagu bedelay marka email iyo mobileka haddaad doonaysa inaad bedeshid isla meesha adoo joogo emailkii waa kana xogta emailkaaga meeshaan geli haddii laba email aad isticmaalaysa meeshaan geli okay haddii mobile telefoonka aad rabtid maxaa loo yaqaanaa inaad isbedel aad ku samaysidna waa kana meeshii mobile ay ku qoran tahay ayaad waxaa gelin doontaa xogtaadii adi aa u baahnayd markaasi aad meeshaan gelin doontaa okay marka waan ujeednaa hadda portfoliogeena waa uu dhameystiran yahay okay navigationada uu leeyahay waa kana homekii aboutkii surfaceka portfolio iyo contactiga su'aalahan qofka hadduu rabo inuu ogaado xog adiga kugu saabsan about uu ku dhufto halkaana la keeni doonaa oo wuxuu arki doonaa xogtaadii oo dhan ayuu arki doonaa su'aalka surfaceka hadduu ku dhufto inta ayuu ka arki doonaa adeegyada bixisa markaa okay hadduu saan portfolio ku dhufto uu rabo projectadii aad samaysay inuu arkana watana inta ayuu ka arki doonaa okay contact me ama meel uu kala soo xiriir markuu rabo intuu ku dhuftay waa ka intaan ayaa loogu soo bandhigi doonaa qofka dhow magaciisu gelina emailkiisa kadibna fariintii ama ujeedada uu kaa lahaa ayuu halkan ku qori doonaa markuu sandi uu dhahana isla markii emailka ay kugu soo dhici doonta waa automatic marka hadda si aa u fiirsid qaybtaani inta ku jirto maxaa loo yaqaanaa get a free quote now ay ku qoran tahay function tan haddaa rabtid meeshada inaad ka saartidba waxaa sameynaysaa markaasi waxay ka sareysaa ogow say hello to me korkeeda waa soo maa portfolio hoosteeda marka tusaale ahaan control f haddaan qabto say hello meeshaan ku qoraa markaasi say hello haddaan ku qor meeshaan waa arki doonaa markaasi waxaan ahan say hello ayay ka sareysaa marka say hello dushiisa tag markaas waa kana get a free quote now ujeed soomaa meeshan waa kana ay ku qoran tahay get a free quote now marka waxaanan ayada meesha waa ka saarayna okay si ugu saarayna waa kana asi wuxuu ku sameeyey section oo quote ah hal markuu biyey hoos u bax hoos haddaan u baxo waa kana sectionkan oo quote ah mujeediyo waa is wataan haddii hal mar dalad aad ku qabatid kadibna save garaysid kadibna websiteka soo geshid kadibna refresh aad dhahid xogta inay baxdaa la rabaa okay
waa kana marka xogtii meesha sidaa ayaa looga saaray marka waa ujeeda marka sidaan ayaad u samayn doontaa website ama portfolio diyaarsan. Okay, qodob kale aan ku dari karno markaasi websitekeena waxaa noqon karaa tusaale ahaan websitekeygii hore haddaa fiirsid portfoliogeega sidaan ayuu u samaysan yahay. qaybtaas kor haddaa fiirsid waxaa saaran sawirkeyga saaran meesha qorta marta may portfolio sawirkeyga saaran. websiteka hadda aan sameynin waxaa saaran calaamadan oo bloggerka ee websitekaana saaran. marka haddii aad doonaysid maxaa loo yaqaana si calaamadan haddaad bedeshid oo sawirkaaga iyo logooyin aad leedahay tusaale ahaan inaad ku bedeshid haddaa rabtid waa maxaa sameyni marka sidee loo bedela marka calaamada marka waxaa la dhahaa fav icon ayaa la dhahaa. tusaale ahaan waxaa tegaynaa websitekeeni bloggerka ahaa markaad tagtid qaybtan settingka ah ku dhufatid qaybtan basic ah hoos haddaa fiirsid waa ujeedaa fav icon ah ku qoran haddaa ku dhufatid waxaa imaanaysa meesha qoran tahay juice file marka tusaale ahaan sawirkaaga doonaysa inaad ku bedesho meesha sawirka markaan ku dhufto fiiyey hadda markaan ku dhufto sawirkeyga kadibna aan save dhaho wuxuu leeyahay the file is too large uu leeyahay filekan uu badan yahay uu weyn yahay marka taas macnaha waxaa waaye filekeena waa inaan u bedelna maxaa loo yaqaan icon ahaan waa inaan u bedelna image caadi waaye si ugu bedeli karnaa marka tusaale ahaan internetka haddaad tagta ku qorta markaasi imagekey markaasi extensionkiisa png waaye marka imagekey extensionkiisa waa png marka waxaa leenahay png haddii tusaale ahaan aan dhahno png to fav icon mujeedino fav icon kadib intaan dhaho kan ugu horeeyo maxaa ujeeda fav icon generator ku dhufa marka website markaad soo galno wuxuu ku leeyahay drag and drop your file ku leeyahay clicksy kadibna waxaa soo saartaa sawirka tusaale ama loogada aad doonaysay inaad meesha tusaalaan sawirkaana doortay sawirkan waa ujeedaa marka meeshuu yaalaa kadib download aan ku dhufanaa sawirkii fav iconkii sidaan ayuu usoo degaa markaasi. Okay, isla markaasaa bedela marka sawirkan waa ujeedaan aan soo geliya hadda kadib waxaan tegi doonaa maxaa loo yaqaanaa downloadka ayaan tagi doonaa kadibna ujeedaa extraction ku samey markaasi kadibna gudaha usii gal waa ujeeda markaas fav icon waa kana waa haysataa marka waxaan sameynaynaa marka kulaa websitekaaga. Okay, website markaan kulaa hadda waxaa leenahay juice file kadib waxaan tagi doonaa downloadka kadib waxaan ku dhufan doonaa filekeyga kadib waxaan dooran doonaa sawirkii iconkii kan camal aan doortay iconka sawirka waa soo geliya ujeeda fav icon kadibna waxaan leeyahay save markaa save dhahday marka sidaas ayaa maxaa loo yaqaanaa loogu daro fav iconka ama iconkii kuusoo muuqan lahaa marka waxaan rajeynaya muuqaalkan inuu waxyar aqoon aan badnayn aad u yar xitaa inuu kugu kordhiyay ayaan rajeyn doona hadduu ilaa idmo marka muuqaalkani meesha ayuu ku ekaya markaas waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani waxaan rajaynayaa in muuqaalkani wax aad ka faa'iiday marka haddaa ka heshay muuqaalkani fadlan jalaag subscribe noqo muuqaalkana intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah sidaa iyo nabadgelyo.